dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaana u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ka howlgala deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab dagaalka ayaa wuxuu yimid kadib markii Al-Shabaab sida la sheegay gubeen todoba gaari dameer oo raashinka noocyadiisa kala duwan wada degmada Xudur oo go'doonsan Al-Shabaab dadka degmada qaarkood ayaa waxay sheegeen intuu socdo dagaalka in si weyn looga dareemay degmada Waajid ee gobolka Bakool saraakiisha ciidanka ururka 260aad guutada 9aad qaybta 6aad ayaa soo bandhigay sawirada todoba gaari dameer iyo raashinka ay wadeen oo qaarkood lagu balse soo badbaadin ciidamada dadkii wada gaari dameerka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa muddo sanadaha waxay u go'doonsanad ururka Al-Shabaab waxaana dawladka degmadaas ku beegsanaa cid kasta oo isku dayday in raashinka geysto hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Soomaaliland